guriga banaanka hadii la keenay waxa la igu yiri xaq kaaga jira guriga waxaan iri hub iyo lacag iyo mataqaana qasnado iga jira banaanka la keenay hubkiba la soo bixiyay lacagtiba la soo qaaday waxaan iri aan lacagta u dhiibtay mas'uuliyiinta idin la socota askartii lacagta iga qaadaysa sidaas darteed waxa la gudoomiyuhu amar ku baxshay in la garaaco waa la garaacay garaacistii waxa iga soo gaaray dhaawac jirka iyo hal dhaawaca oo gacanta iyo all women jirka intaan ahayn intaan wajiga ahayn hala inta kale wax ifayaaw oo Ilaahay abuurtaa ma jiraan okay ugu horeen miska warbixisay adigu maxaa tahay ma askariyaata ma shacabata hubka nooce qaabka anigu waxaan ahay sargaal ka tirsan qaybta 12 Abriil xoogga dalka Soomaaliyeed sidaas darteed waxaan u sheegay inaan sargaalahay gurigayga aan fasax ku joogo aan deganahay haashiisana aan leeyahay wax intaas hadan sheegay wax jawaab la ima soo celin amar baa lagu baxshay in guriga la dunsho lacag 8600 doolar milyan Soomaaliyan waa la iga qaatay burtoolada waa la iga qaatay qasdi waa la iga qaatay moobiladina waa la iga qaatay sidaas darteed waxaan codsanayaa dawladdu arrintaas tayda inay wax ka qabato ilaa 14 dhibkaasi gaaray ilaa saacan ilmahaygi waxay taagan yihiin barxadii laba xaas oo ilmahay dhashay iyagii 14 anug iyo hooyooyinkoodii meeshii jooga male maacuun ay wax ku cunaan male raashin ay mataqaana ay karsadaan diriska wax noo soo aruuriya dhibaatadaas aan ugu dhacday dawladda waxaan ka codsanaynaa in wax looga qabto lagana soo gaaro kaasi wuxuu Axmed Biyoole Xasan oo sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaasoo bilaqay boob ay u geysteen xulafo uu watay gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana gacan qaad oo halkaasi ka dhacday Axmed Biyoole ayaa waxa gaartay jug aad u fara badan Axmed Biyoole wuxuu saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka codsanayaa in wax loo qabto arinkiisa